ka badan 170 qof oo askari ah oo ciidamada Jubbaland iyo Puntland ka kala socdo, kuwaas oo rabay in ay ilaaliyaan ammaanka Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ayaa dib loo celiyay. diyaaraddu hawada maraysaa dib loo soo celiyay. waa faldambiyeed iyo isku day dil. saaxiibayaal soo dhawaada, ayaantan waa ka mashquulay barnaamijyo iyo waxyaabo kale oo ay qabsaday aan la mashquulsanaa. maanta qodobadan ugu door karo haddii hal iyo laba ka dhaxno saddex qodob ugu muhiimsan. qodobka koowaad waxaa waaye garyaqaan iyo ninkii ay dhihi jireen Yubos waa la xiray oo xabsiga loo taxaabay. sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Siciid Cabdullaahi Deni iyo ninkay dhahaan Axmed Islaam Axmed Madoobe in diyaaradihii ciidanka ay soo saareen ee Muqdisho u soo socday iyagana dib loo celiyay, iyadoo dowladda ay sheegtay in ay waxyaabo badan ay xiranayso. sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ka badan 21 qof oo xildhibaanadii maalintii dhaweyd baarlamaanka isku dhex feeray in laga joojiyay shirarka kusoo aadan isbuucyada nagu soo aadan. saddexdaas qodoba ugu muhiimsan waana falaqeyn doonaa, hal iyo labana waa ka dhigi doonaa. waxaan ahay Mr. Kamatani, soo dhawaada mar kale. qodobka koowaad haddii aan ku hormarno ninkay dhahaan garyaqaan iyo Yubos waa la xiray, sida halka hadda u jeedaan iyagoo isku ballansaday hotel ku yaala magaalada Muqdisho siiba dhanka iyo eelboorka, iyagoo raba in ay biskoolada qoryo isku soo qaataan ka bacdina isxabadeen, laakiin waa laga hortagay oo waxaa ka hortagay ciidanka booliska Soomaaliya, xabsiga ayna u taxaabeen. hooy hadday ku dhashay meel hebel jooga igu mawdhe waaba ku soo joogay ku imaana magaalada maqlay dhagaa maaliga la siyaa lambar 4 aan joogahan ku iri wadada aeroboorka maqaayad ahaan ku jiray imow kaamirooyinka furtano qof walba meeshuu joogo restaurant jooga igu imow halka imow. arrintaas ayaa 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada aad loo karkarinayay. haddii aan gudagalno dhanka iyo siyaasadda, in ka badan 170 qof oo askari ah oo ciidamada Jubbaland iyo Puntland ka kala socdo, kuwaas oo rabay in ay ilaaliyaan ammaanka Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ayaa dib loo celiyay. dib celintiina waxaa lagu sheegay ama dowladda ay ku sheegtay in ciidankaas gudaha magaalada Muqdisho soo gelina ay khalalaase weyn ka furi karaan haddii ay isfahmi waayaan siyaasiyiinta Axmed Madoobe iyo Siciid Deni iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxayna sheegeen in nimanka haddii loo ogolaado gudaha magaalada Muqdisho hubka inay la soo galaan, berri aysan dib u celinayn hubkaas oo ay rabaan in meesha ay fadhiisan ka dhigtaan ilaa iyo siyaasadda arrimeeda laga heshiinayo. arrintaas oo dowladda iyadana fahantay si ay ka hortag u sameysana waxa ay sheegtay in heshiiska ay ka baxeen Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Islaam Axmed Madoobe. qorshaha awalkii hore lagu heshiiyey guddiga labada meelood ay ku soo heshiiyeen waxaa ka mid ah in ka badan 40 qof inaan la imaan karin, laakiin hadda qofkii wuxuu la imaaday in ka badan 172 qof. sidoo kale waxaa la sheegay 21 tikniko oo la rabay in lagu soo gudbiyo wafdiga ama ciidanka ay keensadeen labada maamul goboleed Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe. gawaaridaasna eelboorka ay ku xayiriin sida halkan idinkaga muuqato oo sawiraanta hadda in soo saaray. barnaamijkaas waa la celiyay, waxayna u baahan tahay in shirkii la rabay in 1 Febraayo ama 2 Febraayo uu dhaco in uu shirkaas uu dib u dhacay uusan dhici doonin. Siciid Cabdullaahi Deni oo ka gadoosan arrinta ciidanka dib loo soo celiyay wuxuuna yiri sida tan: intiina halka fadhida kama warqabtaan saaka markaan garow ka soo baxnay ciidamadii hordhaca ahaa ee wafdiga dowladda Puntland xamar uga qaybgal lahaa shirka lagu igmaday iyo howlwadanadii dowladda ee madaxtooyada oo maanta safar u galay iyagoo dhex hawada maraya ayaa laga soo celiyay diyaaradoodii. waxaa dhacday mas'uuliyad darro. inta badan diyaaraduhu waxaad ogtihiin shidaalka meesha ay tagayaan bay marka dambe ka soo qaataan ay soo noqonayaan. diyaaraddu hawada maraysaa dib loo soo celiyay. waa faldambiyeed iyo isku day dil oo laga xisaabtami doono waqtigeeda. laakiin inaan Soomaaliya xaaladdeeda ka hadalno oo meel walba u tagno uga baaqsan mayno cabsi gelin. Siciid Cabdullaahi Deni waa ku gadooday arrintiina waa uu diiday. Xasan asaa hawshan wato, asaa ku shaqeeya dhaliishiisii iyo hawshii lagu yaqaanay uu iska wataa, asagana sidaas oo kale yahay.
labadii beri oo lasoo dhaafay waxaa la socotay in baarlamaanka dhexdiisa la isku feeray warqadihii ajandayaashii laga hadli rabeen in la jexjaxay iyagoo xildhibaano ka mid ah xildhibaanada ay isfiireen ninkay dhahaan Fartaag iyo ninkay dhahaan Firimbi. gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madow wuxuu sheegay in 20kaas qof ee foodada ka sameeyay baarlamaanka gudihiisa in aan soo geli karin labada aqal kulamada ku soo aadan ee biri isniinta dhici doono, waxaana la sheegay in ay mamnuuc ka tahay 3 kulan ee ugu soo aadan oo baarlamaanka kalfadhigiisa in aysan imaan karin 20 qof ayaa lagu xukumay. arrintaas dad badan ka godooday. hadda baraha bulshada waxaa la wareejinayaa ama ay dadka ay hadalhayaan ama update-ka u dambeeya ah in ka badan 80 qof oo raba in ay xilka qaadis ku sameeyaan ama mooshin ka diyaariyaan gudoomiyaha Aadan Madoobe, waxayna ku eedeeyeen gudoomiyaha Aadan Madoobe nin u shaqeeya Xasan iyo tiimkiisa uusan ahayn nin dhexdhexaad ah oo gudoomiyaha ama gudoomiyaha shaqada loo dirsay qabsanaya in uusan ahayn. mooshinkaas jiro Aadan Madoobe waa rabaa in xilka laga qaado. nimankan 20 qof ka badan maxaa lahay lagu sameeyay hubka dhigis ama maxaa lahay in aysan 3 kulan oo soo aadan aysan soo geli karin. qodobadaas ugu dambeeyay waxaan ahay Mr. Kilmatani. haddii aad video ka heshay like saar si share galay guuleysta. had iyo jeer waxaan soo gudbinaa waxyaabaha dadka ay xiiseeyaan sida wararka, sheekooyinka iyo madadaalada. haddii ay Soomaali naga codsato video gooni in aan ka soo hadalno, heegan waxaan u ahay in aan ka soo hadlo videogaas. hal subscribe aad noo saarto iyo hal follow aad na soo dhahdo waxay nagu dhiirigelinaysaa in aan wax fiican oo qurux badan aan soo gudbino. fadlan ha ilaawin in aad follow na soo dhahaysiin share gareysid. guuleysta.